fadhiga mise fadhiga idin geeya na halka noo dhig na maxay tashaan bila bakariga idin keentay maam bakariyaasha waa dhaqaaya hadda idin keena marba mid marjaab ay keenayaan leeyin waa shaqaale soo gal idinka maanta waa wada dhantiin gurub adigana gudub amaariyo sug arin yar ayaan ka leeyahay adiga macaan ardayda maxaa iga rabta danta muhiimka iga leedahay maxay tahay alxamdulillah hadii waa caafimaad qabtid laakiin ani arintaydu waa dhayeelsatay baritu waa qamiis iskuulna ma jiro waxaan rabaa inaad jaanis siiso macallin maalinta qamiista howlaha guriga ayaa ku mashquulsanahay ma u maleynaa inaan jaanis ku heli karo waan dareemi karaa in aniga ii jaakirayso arinta inta familkiina gaarsiino familkiina ka soo doon soo ma wanaagsan in aan adi heshiino macallin sidaas sameeyeen haddii sidaas tahay barita qamiista waa kulmeena haddaba ogow baritu inay qamiis tahay xeebta liida ayaan ku kulmeena meesha ayaa jabi ah haye macallin waa ku imaanaya bismillaah wadnaha bi xanuune tanqabo ruuxi way arago abaay baaya haysa jikada hadda sii marti waxa cunno noo sii raadi abaay maxaa ka qaldan aniga waa daalanay sagal joogtay sagal ii kaanda uniformkan isku soo bedela kuleelkiisii sagalay abaay uniformka isku soo bedelaya waxa cunaysi diyaari haye abaay qadiin hadda fadhi ku soo diyaarin raba ما شاء الله قبر قرص بدنا على كيني قبرنا شغالين ما قلقوا أبا يصير لو كان إلى هذا يعني هذا اسمه برني برشلونة سنقاقا ليدا meel isku arka ma joogna xaafadan way dad badan tahay magaciiga sagal aan lahaa أبا يعني هذه حافظة ما كود سمنا أسوقانو abo muku fahmin maxaa ka wada لماذا نفهم مية وحن كود عنيك تقولون كمان لنا مرتاحين كاي hadda ayaan ku fahmay oo mashquulsanahay markale ayaan sheekaysanayna oo maanta kuwii way sheekaysanayaan talo maxay qabanayaan hooy ay sidee tahay war hooy waan fiicanahay arintaas shalay ii sheegaysay maanta cadaatay hooy maxaad aragtay bal ii sheeg war ninkii qooqaaga shalay ii sheegaysay waxaan arkay maanta isagoo gabadha jaariyadeeda hoosta kaga jira haye hooy mila aragtay ninkii jaariyad cafi waayay gabdheena miyuu cafinayaa haa hooy waan arkay mas weeyaan aan soo dhawaystay mar dambe igaalama hadli kartid ninka aniga la xisaabtamayo alla hooy maxamed yaa u tashanayaan arinta arin weyn waaye hooy gabar saaxiibo aan hayo iskuul ana wax xanuunsanayso hooy soo booqanaya haye gabalkii uu dhacay daqiiqad ku soo laabo haye hooy waa soo dhaqsanaya maari meeshan quruxda badan fadhiisana way fiyuhu badoo dhina ka daawanayna haa fadhigan aad u qurux badan fiyuhu ka daawanayna fariisi ma garan kartaa muhiimadda meeshan oo maane macallin ma garan karay adiga ii sheeg ereyga macallin waa xurmad laakiin xilligan oo kale macallin inaas dhaana soo lagama wanaagsano xilligan iyo xilliga iskuulka faqriga u dhaxeeya muxuu yahay soo moogid inaan ka soo gudubnay macallin iyo ardaygiisa xilligan ahayn wax kasta waan dareemi karaa laakiin ma rabo inaan ixtiraamka macallinimo soo gudbo inaad ixtiraamto way wanaagsan tahay laakiin soo moogid jecel laba inaan kuu qabo macallin wax kasta indhahaaga ka akhrisan karaa laakiin ma rabo arrinkaas inaan hadda ka hadlo sidaa rabo maalin bay ii hagaaga doontaa in socodsi xoogo xeebta aas socone ruuxi way arago alla macallin walaalkay ay arkay yaa haa waa runtay qofkaas dhuumanaa Soomaali maaha waxa ka shakisanaa qooqaaga talo macallinkii ma bilaado arinta waa inaa hooyaday u sheegaa war maxamedow war kaareer baabka fur wax garaacaya ma aqaane guriga mashruuc badan waa maxay hore ee gadaal loo sii socdo aniga soo furay hooyo waraadi maxaa ka qaldan guriga ma leedahay xilliga socodku waa maxay محمد ودليرة إسكال سو باشالة جروان كو عجسي war dhalinyarada wax beega migin guriga waqti uu leeyahay waqtigiisa ilaali orod maariya maxaa sugeena ma iskoolkeena aadno abay qooqaaga sugeena uu soo labisanaya hal mar wada baxeena cunugan asiga maxaa ka qaldan oo guriis kugu dhajiya naadi horta cunugan maxaa kugu diray waaba kanaabo soo gal ماريو كالي بهالمر أرنا كالي haye aboowe ماريو إيريان كسي حما يوحال والالك يقولي oo maxay tahay erayga uu ku dhayaa ka seexan weyse أنيق جروان وقتي نكو ماذا يقبت حريده ويقاضي oo sabab uu waqti kugu qaban karaa guriga ma asaga iska leh أنيق كله جريو إيحجا إذنك يا والله إنك سنجله السيارة iska dhaaf ninkaas ee aniga garanay hooyo haduu soo sheegaya hooyo naahe hooyo wiilkaaga maxamed maxaa ka qaldan qooqaaga waqti uu qabtay guriga inuu ku soo galo uu ku baxee na hadii waqti loo qabtay oo la yiri guriga waqti ku imaw ma dhib ay leedahay hooyo wiilka soo xirmaan see waqti loogu qabanaya na adigu ninka waqtiga loo qabtay
bartay matiid naaduma fayeenbaad u tahay naaro isaga igu yeedh hooyo suu wiilkeeda maxamed ugu imaado way isbedeshay na xageedna ugu dul fikiraysa naarna dhaaf hee maama qadan ma adaa ii wacayna war haddii lagu yidhi guriga waqti ku imow maxaa lagu yeelay war maxaa kaasii horta may maama waxba liima yeelin naa maariyo naa kaalay iskoolkii naada hortay soo dhaafa yeeladan isarani wuxuu adduun aaway qooqaagii niila socon jiray maxaa dhacay labadiina kaliya ayaa socotaane macalin waa kan gadaasheenu socdaa faantuush warqadii imtixaanka kaa sugaya soo diyaarisana alla macalin waa soo ilaaway imtixaanka warqadihiisa see ku soo iloobi kartaa warqadaha imtixaanka adiga waxaa waxbarasho maa dhadheelaya kaa tataa gacanta alla macalin maxay igu qaraacaysaa bilaadan ah waa soo ilaawee